كلها هاي فنان شرم بوي يوز بي يا فنان كسنتك يانا كواليتي سرية يانا شعبية بدن أديك إداوانا شخصيا هانت هذا محي كلها هان فلقين دونا فنان شرم بوي يوز بي يا فنان كسنتك أما يا أقلنا فنان كسنتك waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaa labadaas fanaan oo ah laba fanaan oo dhanka raabka waayihii dambe ama sanadihii dambe saameyn fara badan ku yeeshay siiba fanaanka waqtiga dambe ama waqtiyada dambe aadka loo bartay ama la soo baxay aad u sareys ayuuna la soo baxay wuxuuna sameeyay wacdaro indhaba aan caadiyeyn fanaankaasna waa fanaan Wizby waxaana la barbardhigi doonaa fanaankan kale ee Sharma Boy marka waa iska macquul adiga daawanaya just inaad tahay taageere ama taageer Wizby ha noqdo ama taageer fanaan Sharma Boy laakiin muhiimada ma ahan inaad taageerto laakiin muhiimadu waxa waaye wixii jira ama markaas waqtigaas ama sanadan dambe ay ku jiraan labadan fanaan oo dhanka raabka ee aadka sanadan dambe bulshada badan ay aad taageerayaal fara badan ay wada yeesheen waxaana waqtigan dambe shacbiyadiisa aad u bateen fanaankan Wizby sababtay tahay isagu wuxuu ku jira waayahan dambe ama sanadkan dambe waqti aad u qurux badan ama fankiisa ama dhankiisa noloshiisa ahaatee laakiin waxaan la barbardhigi doonaa fanaan kale Sharma Boy fanaan hadii la barbardhigo ama barbardhig lagu sameeyo waxa ay soo saareen ama dhanka muuqaalada ha noqotay ama dhanka erayada ama dhanka dadka badana ay challenge ku sameeyeen dhanka muuqaalada ama dhanka quality-ga muuqaalka oo duubista waxa aad ugu wanaagsan ama dhankaas aad boqolkiiba boqolka fanaan Wizby muuqaalada duubo ama heesaha laga duubo waa heeso ay badana ay lukuleeyeen ama ajaanib ay ka duubaan waana muuqaalo waqti la galshay ama quality-kooda ay boqolkiiba boqol la hubo sida aad ka arki karto hees shacbiyada faraha badan oo ku yeeshay heestaas oo ahayd mar horan sameeyay qaabka loo duubay ama dhanka quality-keeda inaba aan caadi ma ahayn qaabka muuqaalkaas loo duubay ama heesii dambe xitaa just mar horan sameeyay ka dambeysay heesaas qaabka loo duubay ama dhanka quality-giisa dhanka labada fanaanada isku fiirsho dhanka muuqaal duubista ee cameramanada ay haystaan waxa quality sareeya ama dhankaas ku horumarsan ama Wizby ayaa ku horumarsan dhankaas hadii noqoto dhanka muuqaal duubista cameraman aad quality sareeyo ayuu haystaa mid kale ee dhanka erayada hadii la dhaho ama erayada just la sameynayo lagu heesayo ama dhanka laxanka waxa boqolkiiba boqol ku wanaagsan ama dhankaas aad quality-na ku haysto fanaan Sharma Boy midaasna waa mid walba fanaan walba meel buu ku fiican yahay sababtoo tahay qof adduunka ma jirto dhameystiran oo kaamil ah ma jirto qof walba meel bay leedahay ama qof walba meel bay ku fiican tahay marka dhankaas waxa aad u wanaagsan ama dhankaas dhanka erayada la dhaho ama awoodo in mar walba ama isbuuc walba oo soo qaado 3 hees ama ilaa 2 hees ilaa 4 hees soo qaadi karo fanaan Sharma Boy laakiin Wizby heesaha soo saaro ama dhanka YouTube-kiisa soo galsho isagana inaba caadi maahan oo waxa la dhihi karaa waa fanaanka isagana ka agdhow ama ka sanadadan dambe la tartami karo fanaankaas oo la barbardhigi karo sababtay tahay erayada ku heesaayo ama erayada oo loo abwaanka u sameeyay ama isaga ha sameeyay ama qof kale abwaan ha u sameeyay erayada inaba caadi maahan qaabku isagana u heesaayo oo dhanka raabkiisa uu karbaashayo hadday noqoto dhan karbaash ha noqoto ama dhan amaan ha noqoto sababtay tahay raab dhan waaba intaas in la is amaano ama isaga han u is amaano ama qof uu amaano ama inuu qof uu karbaasho waxaana boqolkiiba boqol dhigi karnaa aan quality-ga mar walba meel walba ku sii karnaa dhanka fanaan Sharma Boy inuu ka horumarsan yahay fanaan Wizby